بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في العقيدة، أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثانيا waxaan u mahadnaqayaa bacd allahi subxaanahu wa tacaala walaalada diyaariya kulankan iyo markaska reer abu hurayra maamul iyo shacabkiiba. marka labaad, haddii aan deriskan bilaabo, deriska lay dhiibay waxaa la idhahaa miftaax asacaada zawjiya, furaha badhaadhaha qoyska ama sareedada qoyska. qoyska muslimka ah inuu liibaano oo uu badhaadho ku noolaado ama sareedo ku noolaado, furaha wuu u baahan yahay. asal waxaa islaamka aynu garanaynaa inuu yahay nidaamkii alla soo dejiyo lagu dhaqmo, sidii alla uu doortay dadku inay u dhaqmaan, rag iyo dumar, qoys mid yar iyo mid weyn, in loo dhaqmo. laakiin waxaan isku dayeynaa bal bacd alashyaa inaan tilmaamno. waxaynu tilmaami karnaa ziwaajku ama guurku waa sharika bayna zawjayn, ama waa nolol ay wadaagayaan laba qof oo markii hore ajanabi kala ahaa, dabeetana isaga raalli noqday inay nolosha isku darsadaan. waxay yidhaahdaan shirkadaasi waxaa asal u ah, ra'samaalkeeda koowaad bay yidhahdaan huwa alxub. shirkadaasi ra'samaalka keliya ay leedahay ee asalka ka ahi waa kalgacal. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fi suurati alacraaf: huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha. ama fi suurati aruum: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي وحت الماما يا سبحانه وتعالى، إلهي آيات كيس ووين اللغوغرت وحكم ده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إن ورقة ama aadam calayhi salaam laga soo bilaabo uu ka abuuray ama uu u yeelay lamaane. lamaanaha waxaa laydinku yeelay baa la yidhi litaskunuu ilayha, inaad ku xasishaan. asalka guriga markaa waxaa asal ka ah in loo dhisto lilitminaani waasukuuni waalraaxa, qofku inuu dego oo xasilo oo meel nolosha dhibteeda kale uu ku soo ilaabo ay noqoto, meeluu nashaad iyo firfircooni ka qaado marka uu ka baxaya inay noqoto. ilaahayna wuxuu tilmaamaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma, dhexdiinana waxa alla yeelay subxaana wa tacaala mawadda, kalgacal iyo naxariis baa la yidhi. kalgacal iyo naxariis. waxaynu markaa isku dayeynaa sida qur-aanku tilmaamayo xidhiidhkaasi guriga ka dhexeeya ama ninka iyo haweenta uu qabo ka dhexeeya waa xidhiidh xeel dheer oo waxyaabo badan tilmaamaya.
إلى حد إلهي كنت المامية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هبا أتهين إذنكو هوين كان قبطان هوين إدادنا هبا يكوتي داركو قفك بني آدم كاي صدح شيء بوقاتا أولا وحوقاتا عاديات الحياة نسكي عليه كليل قبو واحد شراء نسكي قربو ثانيا وحوقاتا لستر عورتي سينو كو أسترته ثالثا وحوقاتا للزينة وللتزين إنو إسقرحيه ninka iyo gabadhu intaba way isu yihiin saddexda shayba ninka iyo gabadhu way isu yihiin waa meel uu qofku hadduu nin iyo hadduu gabadh yahayba uu ku dego ku xasilo waa meel uu cawradiisa iyo sirtiisa iyo waxa u qarsoon oo dhan uu ku kaydsado oo uu dhigto waa meel uu quruxdiisa ku muujiyo idan qofku wuxuu qurxoon yahay markuu yahay qof reer leh oo degan ayuu nolosha quruxdeedii iyo dhadhankeedii hayaa saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ragga iyo dumarku inay libaas isu yihiin dhar inay isu yihiin gurigaasi sidaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey waa kalaamu rabbi alcaalamiin gurigaa ilaahay sidaa ku sifeeyey ee ku tilmaamay in hullaysu yahay ama in lagu xasilayo ama in mawadda iyo raxma dhexdooda ay taalo ayaa waxaan isku dayaynaa gurigaasi inuu sii jiro waxyaabaha keeni kara ee sacaadada iyo badhaadhaha ka muujin kara waxaynu leenahay dhowr shay baa jira dariskan intiisa badan waxaan isku dayaa inaanan ka hadal xuquuq iyo waajibaadka iyo baabkaasi laakiin waxaan ugu horraysiinayaa ka hadlayaa fannu tacaamul qaabka wada dhaqanka qaabka wada dhaqanku maadaama asaaskiisuba uu xub iyo kalgacal yahay waa inuu ku salaysnaadaa kalgacalkaasi iyo sidii loo xoojin lahaa jacaylkaasi ama kalgacalka ama isu hilowgaasi inuu beermo oo koro oo kobco sacaadadu markaa waxay ku xidhan tahay in laga ilaaliyo munaqasaadkiisa ama waxyaabaha waxyeelaya in la taqliiliyo kalgacalkuna waa wax la beero sideedaba xubbiga waxay yidhaahdaan kalgacalku waa tilka alxaala alatii tusbix fiiha sacaadatu shaksin aakhar daruuriyatan lak waa xaalad bay leeyihin qof kale liibaantii adiga ay daruuri kuu noqoto aad ku faraxdo oo qofkan aad kalgacalka u haysee jeceshahay waxaad la jeceshahay wanaag oo dhan waa xaala aad qof kala rabto liibaantiisu adiga ay ku farax gelinayso waxaan rabaa markaa laba dhan inaan ka sawiro dhan inaan ka sawiro ninka dhan kale inaan ka sawiro gabadha marka aan taa tilmaamayo awalan kalgacalka iyo xubbiga ninka iyo gabadha u dhexeeya inta badan dadku marka jacayl iyo kalgacal iyo muxibo iyo cishq iyo warkaa marka la sheego dadka inta badan waxaa ku soo degdega caqligooda mas'alat aljamaal quruxda iyo dhismaha qofka iyo hay-adiisa nacam quruxda iyo cadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitrada insaanka bay ka mid yihiin sideeday fitriyan bay ay maxbuub yihiin waayo ilaahayba qur-aanka markuu inoo mana sheeganayo ee la sheegay xoolo in laynina siiyey oo ilaahay inoo abuuray oo aynu wax ku raranayno oo ku guurayno ayaa la yidhi walakum fiiha jamaalun xiina turiixuun wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugan xoolu markay sii dareerayaan iyo markay soo dareerayaan baa la yidhi yacni jamaalku waa shay fitrada asalka qofka bini aadamkaa ka mid ah laakiin gurigu jamaalkaasi ku saabsan hay-ada iyo bidhaanta waxaa ka muhiimsan jamaalu lafcaal waxa la yidhaahdo quruxda dhaqanka ka muhiimsan quruxda dhaqanku ama jamaali lafcaal ayaa sameeya kalgacalka joogtada ah waayo jamaalka jasadigee sare ee muuqda waxyaabaha ugu horeeya ee lumaabuu ka mid yahay marka muddo la wada joogo da-baa iska socota saa daraaddeed waa tarahulaat baaba waa muuqaalkii hore isbeddel baa markiiba ku yimaada
laakiin waxa loo baahan yahay inuu gurigu ku dhisnaadee kalgacalkiisu ku salaysan yahay waxa weeye ka asala jamaal alafcaal. sida awgeed reerka saciidka ahi bay yidhaahdaan waa reerka shuclat alxubbi aanay marna gamaarin. shamaca kalgacalku waa reerka aan la daminin bay yidhahdeen aanu damin. si kale marka loo tilmaamo waxyaabaha dadka isku xidhay caatifada ahi waa reerka aanay marnaba naaqusin, laakiin ma aha shaygaas shay sida wajbat alghadaa inta mar la isu dhigo la dhergo saa la ahaado. walidalik waxay yidhahdaan xubbiga iyo kalgacalku waxaa laga yaabaa caawa inaan ku hadlayo luqo ay ku fiican tahay intii guur ku jirta un inay dhegaysato amase inta haabanaysa ag joogta. walidalik maadaama sacaada zawjiya aan ka warramayo waa runtii luqo gaara. waxaa la yidhahdaa kalgacalka waxaa loo yaqaano sidiisaba wuxuu leeyahay funuun. kalgacalku ama jacaylku wuxuu leeyahay funuun lagu taqdiyeeyo ama lagu beero qaab loo koriyo loo kobciyo. mithaal aan axaadiista nebiga iyo ku noqono sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qur-aanka. waxaa laga yaabaa inay inta badan dadka ay agtooda ghariib ku tahay iyadoo jacayl nin iyo gabadh dhexdii jooga laga warramayo in haddana qur-aan iyo xadiis aanu kutubulfan kama warramayo, laakiin waxa aan tilmaamayo dhami waa waxaan daliil uga keeni doono min kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala iyo min sunnati nabiyi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama dhaqankii nebiga iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa. kalgacalku wax beerma horta inuu yahay nebi maxamed baa wuxuu tilmaamayaa ashyaa dadka muslimiintii hadday sameeyaan isjacaylkooda uu badanayo. مثلا النبي يقول عليه صلوات الله وسلامه عليه تهادوا تحابوا حديث صحيحة. هديات كيساسية أو حيث هدية واسجعلها نيسان يعني إن هدية الله يساسية وحي كم تهي وحيارها بيره دتكو إن الرال إسكن نقضان وحريد في عن وكالقعل ونحمره. وحكم إذا النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حديث كيسنا صحيح مسلم كي لي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. جناد قال لي ما يسامبوا النبي يقول لا يا إيمان لا يدين كهل موياني إيمان لا يدين كهل ما يا لا يا محي أشجعلاتان موياني. هذا النبي يقول حط المامي كالقعل كاسي مسلمين تدحدوا دقليا سدوا أكر لها. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ما يدين تصيابوا النبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه أعمال يا أفعال هذا سميسان أشجعلان إنسان. وحو النبي يقول لي أفشوا السلام بينكم. salaanta badiya. salaanta waa kalaamka طيبkii halku ka bilaabmo qofka walaalka ay markaa soo horbaxo assalaamu calaykum inaad ku tidhaahdo waad u ducaynaysaa. qofka intuu kuu yimi assalaamu calaykum macnaheedu waxa weeyaan rabbi ha ku dhowro. qofka intuu kaa soo horbaxay kugu bilaabaya hadalka ilaahay baan ka baryayaa inuu ku ilaaliyo waa qof kalgacal uu kuu wado. hadduu kugu celceliyo markaas si kasta aad u cadhaysnayd hadduu imika assalaamu calaykum ku yidhaahdo haddana hadhow markaas ka soo horbaxda assalaamu calaykum ku yidhaahdo laba saddex jeer haddaad afka buurto marka dambe waad iska nafisaysaa wacalaykum assalaam baad leedahay. yani waa qof muslim oo markuu kaa soo horbaxay ilaahay kuu baryaya rabu samaawaati walardi qof kuu weydiinaya inuu ilaahay ku dhowro kama adkaysan karaysid marka dambe. yani nebi maxamed wuxuu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka inuu xubbigu wax la beeri kara yahay. dadku inay isjeclaadaan wax la beeri karo oo kalgacalku beerma inuu yahay. bale qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay idfac billatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim baa ilahay yidhi. marka xuma lagugu sameeyo wanaag kaga jawaab baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. oo maxaa dhacaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kii colaadu idiin dhexaysay wuxuu noqonayaa buu ilaahay leeyahay kaannahu waliyun xamiim ay sadiiq qariib oo ku jecel ayuu soo baxaya. qofkii dhibta kuu geystay ee kaa filayay inaad ka aargudato ama aad ka aargoosato ama aadna aad cala alaqal fain caaqabtum bimithli inuu sugayay intii uu kuu geystay in lag cala alaqal inaad u geysato haddaad weliba wanaag u gasho waxay keensanaysaa qofkaa agtiisa inaad dib lagugu soo hadal qaadin daa inuu isagu wax ku yidhaahdee wuu yidhaha wararkaasi abaal buu igu leeyay baraan waxa ku sameeyo haddana wanaaggaasuu ii galay.
سدرادين محن مسائل كانوا تلمامية وحويان حبك فطري يا هوري والله يا با إنن كستو اسكور سنة يا مركي اسكور سين إن كالقع الفطري يدحمر وصورتقال لكن إنو كاسي شوكتا هذا وقريغان السعيل كاسي وكون نولاده وهدي دادكو قبوبان أو لقبوبو أو سيدي شعيل كوشوغا وحوبا هي أفعال يدقن أبوريا إنو كالقع الكاسي شوغا وطها مسألة دا وباهان مركاسي إن وحلا يسكا ويديو ولا تلمامو وطها مسألة دا أنسكو دايا مركا وحي الله كفو دايديو سبحانه وتعالى إنا صور نقليا مسيسيو قوريو إذن كالقع الكقويسكي يقوريو ومطلب ما وأرن أباهن صناعة مشتركة بين الزوجين وهالشيء أباهن نينك إيا قبردو بإنا وضبيران وحانسكو دايا مركا كلمات الحب والعاطفة الجياشة أي كم وغطه إن انكسر النقلية من كلام علماء سلف قرى إن انكسر النقلية علماء دي هراء مسلمين تا إيا وحيابا ساتان كيداهدين أولا وهي علماء دو يدادان كالقعلكو كو أنين إيا قبردو خلقادنو قبردو هوينيدو إنين كذا شعلاته وشعيل دبا شعلاته ومن الدين وانا الصفة ننكونا وشعليه هدو قبردي سكالقعلكو هايستو إيا شعيل وكدريميو ووحو ننكو شعليه تا waxa u daliila ilaahay quraanka markuu sifeynayay dumarka jannada jooga oo ay kamid yihiin dumarkii mu'minaadka ahaa ee dunida iimaan ku dhintay ahlu jannah noqda kamida dumarkaasi jannada jooga ilaahay markuu sifeynayay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sifeeyay inay yiin kuwa ragooda jecel inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran uruban أترابا با إلهي وحويا با إلهي عربا هوينك جنادو كبرنا مسلمات دي إن أهل الجنة لدقا النقطة وهو حدين تكو ياريس يعني أهل الجنة هو دقا فيعا جنة وحيا الله ودقا وناكسن سدرادات كبرنا مسلمات دي دوني دي شوكتانا إن دقا كانوا كلاي لتا وشيء مطلوب له بهاي ولولا هدي آنو أهين ننكو متكو فرحيا إني هوينتيسو جعشي هدانو أهين إلهي وقماش يغن نمعادا وجنة كو هليينيت يعني ميالا وران لها جنة نمعوين كاد نمي هولي سوى حكمدا عين كاين لولا أنا أهين من فطرتي إنو كو فرحيا كو برارا يو كو كالبادانا يو هدي هوينتيسا كم مغطر لقن أما هذا أما صعد أما موقال أما وح سوتشي تو موتشينا يينا يتشعشي هذا كم مغطى سيدا وجد بل كتب التفسير عن تلمامو كلمة عربا أو عربا لبدا قراءة كادون تباخري واسكمي ده واحد هذا المفسرين تشن قول بيكلا ينبولي ابن القيم في زاد المسير كيسة قول كوادة علماء كفسرين وحكمي ده العرب وحويا بولي أنهن المتحببات إلى أزواجهن وسيدة وعوفي بن عباس كورينيو وأنا قولك ومجاهد لقصوا نقلينيو سعيد بن جبير ابن قطيبة إمام الزجاج علماء صورنا بيكو تكتي وحولي هي عروبا تهوينك الجنة اللي قوشي وحويا أنهن المتحببات إلى أزواجهن وشرح دونا وقوة استعليسينية رقودة قولك اللبات وحو أورانا يا عربك يكون فصيرينا أنهن العواشق وكوا إيجا عشق وهيبا كيه رمحولها وكوا استعليسين إياه نين كيدا كان وحولي يضا لفتيدا أي عشق وهيا وأنا سيدا ابن عباس علي بن أبي طلحة وكورين أيه وأنا قولك وكنت جاي حسن يا قتادة يا مقاتل يا مبرد يا مجاهد لفتي سو قول بعد وليه قولك صدح هذا عربا وحي كنت المامان الحسنة التبعل وقبرد الصدف في عن ولدق أنت نين كيدا اسنا أبو صالح يا ابن عباس كورين يا ابن عباس صدح قول بولا كورين يا مركا وأنا قولك كنت جاي أبو عبيدة قولك أفراد مسألة تانية كنت المامان وحويان وعكرمة لقوريو الغنيجات
alghanj alghanija jaariyatun ghanija marka la yidhaha ghanajku waa takasurun wa tadallul waa isjejebin waxay yidhahdaan waa wax ka mid ah wasaa'ilka xubbiga si kale marka loo tilmaamo ibnu zayd qowlkiisa ugu dambeeya wuxuu leeyahay alxasanat alkalaam axad almufasiriin maalan haddaan aqwaashiisa soo guuriyo ibnu cashuur fi tafsiirih wuxuu odhanayaa curub waa jamcu caruub bifatxi alcayn wayuqaalu cariba bifatxin fakasr fayujmacu calaa caribaatin kadalik wahuwa ismun khaasun bilmar'a waqad ikhtilafat aqwaalu ahli luga fi tafsiirih waaxsanu maa yajmacuha ana alcaruub kelmadatan wuxuu leey waa kelmad dumarka ku gaara oo lagu sifeeyo ahlulcilmigu ama ahlulugu markay fasirayaana macnayaal kala gedisan bay tilmaamaan buu yidhi laakiin waxaan sheegayaa buu yidhi wax kulmiya haweenkan jannada sifadatan lagu sheegayay caruub gabadha lagu sifaynaya macnaheedu waxa weeyaan buu yidhi almar'a almutaxabiba ila arajul waa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa aw ilatii laha kayfiyatu lmutaxabiba buu yidhi ama waa gabadha dhaqankeedu uu ka muuqdo inay rabto ninkeedu inuu jeclaado wain lam taqsid itaxabub buu leeyahy oo muxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahy bian tuksir adaxk bimar'a alrajul aw almizaax aw allahu aw alkhuduuci fi lqowl aw allataqi fi lkalaami biduuni cila aw altagazuli fi alrajul والمصاهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه waxaa ku fasiraya sheekha uu leeyay carruubka waxaa la yidhahdaa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa ama uu ka muuqdo dhaqan muujinaya inuu ninka kani jeclaado ha noqoto buu leeyay dhaqankaasi mid ku saabsan qosol ama kaftan ama hadalkoo la jejebiyo ama wax tagasul tilmaamaya yacni wuxuu tilmaamayaa un kayfiya wuxuu kala soo guuriyo uu yidhi waa waxyaabaha marka ay mas'aladu xaaraantatay qur-aanku uu diiday yacni mas'alo ogsoonow xalaasha iyo xaaraantu gabadha ajanabiga ah inay hadalka jejebiso ama ay ka muuqato inay ninka doonayso ama waxaasi oo dhan waa xaaraan qur-aankuna si cad ayay nusuustu u tilmaamaysaa cagsigu waa xalaal bay culimmadu leeyihiin marka cagsigu waa matluub yani nebigu halku ka tilmaamay ninku hadduu gabadhiisa u tagana ajar baa loo qoraya waxay yidhahdeen intaanu shahwadeeda gudana ajar naloo qor oo haddaa la tagtaan buu nebigu yihi maxay xaaraanta haddaa lagtaan miyaan dambi laydiin qoreen walidalik ay ibnu caashuur wuxuu leeyahay waa sida ilaahay baa leeyahay falaa takhdacna bilqawli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waxaa la yidhi hadalka ha jejebinina oo yuu idin dalbin kii qalbigiisu bukay laakiin markay joogto labadii xalaasha ahaa hadalka waa inay jejebisaa si uu u dalbo kii xalaasha u ahaa waxay mamnuuc tahay maxay khaarija ziwaaj inay warka kan la timaado ama se ilaahay wuxuu leeyahy walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatina caga ayay dhulka ku tumin haweentu markay halkaa marayso si loo maqlo maxay jinjimaheediiyo waxay sidato hadday gurigeeda joogto odaygeeda la joogo cagaya meeshay jejabin kartaba ha jejabiso si odaygeeda ay u soo jeedin karto yacni waxa aynu leenahay khaarijka mamnuuc buu ku yahay wuxuu noqonayaa maxay fii beytiha inuu noqdo shay diin ahaan ku bannaan bal acmaasha ay tilmaamayaan cikrima wuxuu kaloo ku tilmaamaya alcaruub ay almaliqa buu leeyahy maliqu waa kelmaddan idhaa hebel waa mutamaliqa halka ka timi maliqu waa qof hadalka jejebiyo oo qofka isu dhul dhigo oo duceeyo oo intii loo baahnaa in ka badan bay idhahdeen ama markay joogto bay leeyihiin beytka ninka iyo gabadhiisa haweeneedu inay dhul isdhigto oo ismiskiiniso oo ducayso oo barido oo odaygeedii hiya almaliqa buu leeyahy hiya alcaruub ayuu ku fasiraya bale culamada qaarkood ka fog baabay ku fasireen oo waxay idhahdaan caruubnimadu hiya alghalima bay idhahdaan halimaduna waa hayajaanu shahwat الnikaax min almar'a wاlrajul labadaba soo dhaaf imaam albukhaari
marka uu tafsiiraya fi xadiid البخاري في تفسير العربة أي الغنج بكت المامي والغنج في الجارية واحدة تكسر وتدلل وإسشبين إيه الصدول. إمام الغزالي في إحيائه وحليه هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع به وبه تتم اللذة. سيدا وقاد وحو لنا هوانيدا مسلم كا قرية كان سوء للسنان كارو وحوبة هنية قرية إنو أكادا قرية جنة كتشري قرية إنو أكادا محي قرية جنة كتشري قرية جنة كتشري هوانتا جوكتا هدي اللي يدي وعربنا ترابا تاني انت أي مثالي كرتوين أي مثشا وح عيبا مركا ما أهمرنبا وح إلهي حور العين تكسفية إني قبرد مسلمات دي كسفودو عيب ماها ما أها عيب مركا لاني وحانو تشيدنا ما أها وح لغا خاتشيلو وح لغا خاتشيلو ماها الحياة قيب كميدي ومذموم قيب كميدينا وممدوح waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuun baylay kuma jirto maxbuubaadka waxa la jecel yahay kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yiri uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxa yiraahdaan aslu lugha rafathka waxa lagu tilmaamaa qofka oo ku dhawaaqa ifsaax bima yukna anhu أو قول الفحش بين هذا الكا مركو قفكو عادي ومالك هذا يوكخجله أما سأنو كل رنين إنه يراده قولي سوى الله يسمر لكتابه وحلاق خجله ما يعلم استدردت كلمة الرفث أي علماء دولي يبالو أديك سدي جماعة ومقدمات كيس اللوغة شهدو إذن ماشا تنوحا عن تلمامي وحويان الأستاذة مريم الناجم باوحي لا هاي هوانتو وكتلة متأججة من العواطف في ترسيدي دبا وكوس كالقعلة وكرية بيتري لكن قفكو حكي ما دابا إلى هاي dareenka xishoodka ee la siiyay qaldan ee kala garan weyday boolada wixii u baahnaa in laga xishoodo iyo waxaan u baahnaa in laga xishoodo ama si kale hadaan u tilmaamo bay leedahay waxa loo qaatay in qofka waqaarkiisa iyo simadiisa iyo shakhsiyadiisa iyo deganaantiisa ay wax u dhibayso cilaaqada zawjiga waxa ku salaysan ee baabkani waxba uma dhimaan bal waxay dhaadaan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhi meel bay fadhiisatay way wardiday qolaa waxay ku yidhaahdeen ma bacda hada min hada labadana waddo kala foga inaad cusbarato oo mariya xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kala fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay lillahi minii jaanibun laa udayicuhu ولله مني والخلاعة جانبه waxay tiri ilaahay dhanbu igu leeyahay aan rabin inaan dayaco dheelkiya maradhigadka ninkayga xaqiisana qayb igu leedahay aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labadaba waa banaayeen tanna waa baab kale oo ilaahay baneeyay markay gurigayga joogo kanina waxa weeyaan bay leedahay wardigii aanu haynayay oo aan barayay walidalik ay ibn asakir baa wuxuu soo naqliyaa بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وتابعي أبو موسى الأشعري بقى ووجي صحابي اللي أورنشري صحابة النبي كتر سنة إسنا أمير بصرة أيها هانشري أيها قولا جلسدي سوى فرد دبو حكيري ما العروب من النساء والقرآن كوا كان عروبا ترابا شاقيه هوانك واتي تعروب كاي قال فماجو dadkii waa buuqbuuqeen markii ninkii ugu weynaabe amiirka magaaladana uu kelmadda tan weydiiyay waa la buuqbuuqay dabeetana waxa soo galay baa la yidhi isxaaq ibn abdullah ibn al-harith isxaaq ibn abdullah ibn al-harith ibn nawfal ibn al-harith ibn abd al-muttalib ibn al-hisham ayaa soo galay in hashimiya nabi maxamed isku abtirsiin alayhi salatu wasalaam oo isna culamadii waqtiga joogtay dadkii markuu ninkan uu soo galay buu wuxuu yiri qad jaakum man yukhbirukum fasaluhu war hadu yimaado ninka waramaya ay isaga weydiiya buu ku yiri hadaa idinku ka warwareegteen oo sheegi weydeen
kan aalubeytkaabaa ka warramaya weydiiya buu ku yidhi waa maxay baa la yidhi wuxuu yidhi alkhafira almutabadila lizawjiha waa ta xishoodka badan markay meesha kala joogto ninkeeda markay joogtana waa ta u furfurana u mardhigata isu dhul dhigta dabeetana gabay buu tiriyey uu leeyahay waa ta la yidhi yucribna cinda bucuulihina idaa khalow wa idaa hum kharajuu fahuna khifaaru markay raggooda la joogaanna waa curubka kuwa lagu tilmaamay xagga dabadda markay u baxaanna waa khifaar yacni alxayaa shadiid baa la yidhaha khufriga waa kuwo aada u xishood badan sidaa awgeed waxaynu tilmaamaynaa gurigu si uu u dhisnaado oo guri saciida uu u noqdo waa inuu noqdaa guri kalgacalkiisa uu joogto yahay kama warramayno cisharadii ahayd bilmacruuf in lagu dhaqmo iyo baabkaasi maaha baabkaynu tilmaamayna si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli ljanna ma idin sheegaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaluud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانكي نكو أهل الجنة وحويا الودود وهطني كذا جعل كبرنا كسي فوضى جعلك كان ahlu jannaha haweenka muslimaadka ee dunida jooga janno gelaya sifadii loogu horeysay waxa kamid ah inay noqoto maxay alwaduud alwaluud alca'uud tu jecel ninkeeda oo wax dhalaysa oo ca'uuda yani caa'ida bilkhayr wa nafci ila zawjiha khayr iyo wanaagu ninkeeda kula noqonaysa ta haddii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tidhaahdaa wallaahi inaanan waxba dhadhaminayn inaad raalli noqoto mooyaane haddii xataa iyadaa la dhibo buu nebigu leeyahy amase iyadoo ay wax dhibto mar kastaba u taagan inay ninkeeda raalli geliso walidaalik ayaa Laura Dwell gabadhan la yidhahdee maraykanka ee le buuggan ay u bixiyeen tarjamadiisa azawja almustaslima